aniga inta xasuustayda ah inay tahay fadhigii ugu horeeyay oo loo qabto alimaamu shaafici taariikhdiisii iyo dowrkiisii uu ka soo qaatay diinta fidinta ummadduna waxay jecel yihiin waxyaalaha la yidhaaho awaliyaadka waa la jecel yahay oo awalu man wadaca hada alfanna وأول من أسس هذه القاعدة أولياتك وحيالها تاريخ ذو أمضاها أي كحسان أي كمده مركتني وحي كمتها من أوليات شيخنا الشيخ عثمان حدق جزاه الله خيرا جزيلا انت أنو عن حسوسنا هاي تاريخ ذا يدور كإمام الشافعي صوماليا اللي قبته انت عن حسوسنا هاي شيخا يوجه الرئي وحمد كبوريا ويراها هلا قبته جلسة كسابسا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وحي كمتاهي جلسة لو قبتي الإمام الشافعي وحنك قادنا إن حكموين يدروس يعشرون نرشينا وحبضا كسو كردين دونا دروس أنك قادنا إنه وحاكمده لا عزة ولا كرامة ولا نجاح في الدنيا والآخرة إلا بالدين شرف أيسن جرين كرامة أيسن جرين قولوا أيسن جرين إلا الدين تماهن قف هدو دونا يا الدنيا إنه كشرفه به فعليه بالعلم قف هدو دونا يا آخرة إنه عزي يا شرف يا مقع قاره فعليه بالعلم والدين وإنه مروا البابا ولازمه أو كده دالو علمك يا دينته تاوحا نوغا قادنا waxaa kamida الإمام الشافعي wuxuu geeriyooday 204 taariikhda hijriga ah waxa laga joogaa geeridii Imam Shaafici muddo ka badan 1200 oo sano muddo ka badan ayaa laga joogaa maanta inagoo قاردن أفريقيا كنول قرنيجي 1400 يا فرتناد نول وقرنيجي شن يتبناد كل حجرنا أيا كن يلا بقول أو سنة كبعدي وحقلبي نكوين وهذا نوجعلنا هاي وحيالها نكفانا إنه كمدا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ودنتي كن يلا بقول أو سنة كهر محاكيني مركز وإنه قفكو يسويديو إنه هذا النول قرنيجي شن يتبناد إنه أقبلنا دورة أقبلنا أما جلسة أنو عقدنا نرشي إمام الشافعي الدور كيسي وحكيني شيخا إنه مروى البابا إلهي ودوري إسونا ودورتي دينة الإسلام كأواركي شرفتا يمقع يماموسكو إنه يدى كل حجرات حديثكي إمام البخاري ومسلم أي ورينيين أي النبي صلى الله عليه وسلم وحكيري إذا أحب الله عبدا نادى جبريل إن الله أحب فلانا فأحبه إلهي مركو قفوا جعلاده أدون مديسة كمدا وجعلاده جبريل إلهي ونواقع إلهي وحوليه جبريل هبل وان جعلاده أدونا جعلاده فينادي جبريل في أهل السماء جبريل يسونا وحود واقي ملائكة السماء كلنا الوحوليه إن الله أحب فلانا فأحبوه إلهي هبل وجعلادي ملائكة السماء كلنا وليدي أذن كنا جعلادا ثم يوضع له القبول في الأرض النبي صلى الله عليه وسلم وحويل مركي عركا لغا جعلاده وإلهي جعلادان ملائكتي سي ayaa qabuulka iyo maxabada iyo jacaylka dhulka loogu soo dejiyaa qofkaas casharada marka aanu ka qaadanayno jalsada loo caqiday al-Imam Shaafici waxa kamida in Imam Shaafici ilaahay uu jeclaaday ilaahayna uu doortay astaana ay u tahay 1000 sano ka badan in Imam Shaafici cilmigiisa uu sii fidayo maxabadii iyo cizigii iyo karaamadii iyo jacaylkii ay ummadda u qabeenna 1000 sano ka badan uu sii socdo
taasina waxay astaan u tahay qabuulka ilaahay aqbalay imaamu shaafici isaga iyo cilmigiisiiba in ilaahay uu aqbalay ay astaan iyo daliil u tahay waxaan halkaa ka qaadanaynaa marka qof walba innaga naga mida cumrigiisa inta ka dhiman ha ku dadaalo barashada diinta iyo fidinteeda barashada diinta iyo fidinteeda liannahu diinta barashadeeda iyo fidinteeda waa midda kaa dhigaysa markaad geeriyootay ka bacdi 1000 sano ka bacdi inaad sii noolaato ilaa qiyaami saaca adigoo qabrigaaga ku jira macno ahaan iyo sharaftaada iyo taariikhdaadu inay soo noolaato oo weligaa taariikhdaadu aysan dhimanayn haddaad adigu geeriyootay waxa kaa dhigi karaahi waa diinta kale ah walidaalika nin shaacire gabyaayo wuxuu yidhi idaa calima alinsaanu akhbaara man madaa tawahamtahu qad caasha min awali dahri qofku hadduu diinta barto wuxuu ogaado waxaad u malaynaya dunida bilowgiisii inuu noolaa jiray waa inta dunidu ay dhisnayd cilmigeedii uu akhrinahayaa maalin walba uu kaaga sheekaynayo marka waxaad u malayn uu yidhi dunida bilowgeedii inuu qofkaasi noolaa wataxsabuhu qad caasha min aakhiri dahrihi idaa huwa abqa aljamiila min adikri waxaad u malayn uu yidhi dunida ilaa qiyaami saacana inuu qofkaasi noolaanayo hadduu magac wanaagsan dunida uga tagtay iyo sharaf iyo maamuus waa sida imaamu shaafici raximah اllahu tacaala imaamu shaafici fakaأnnahu xayun fii mujtamacina haada waaba isagoo dhexdeenna ku nool saacad walba iyo maalin walba isagoo nala joogo dhexdeenna ku nool ayuu la mid yahay liannahu saacad sooma marto caalamka ilaa intaasoo goor ayaa la yidhaha qaala shaaficiyu raximah اllah maalin iska dhaafiyo asaabiici fii kulli saaca magaca imaamu shaafici ayaa wuxuu ku soo laalaabtaa manaabirta iyo macaahidda iyo jaamicaadka iyo xalaqaadka duruusta casharada aan u fadhiisanayno ayaa saacad walba waxaa la leeyahay qaala alimaamu shaafici raximah اllahu tacaala maxaa kalifay ilaa intaas in sheekhu magaciisu uu sii jiro oo ducadiisu ay sii soconayso oo qof walibaahi maantay uu naftiisii ka jecel yahay imaamu shaafici raximah اllahu tacaala maxaa keenay taas waxaa keenay waxaa weeye ikhlaaska iyo cilmiga sheekha ikhlaaska iyo cilmiga sheekha ayaa keenay marka mar walbaba casharada aanu ka qaadanayno dowladan iyo jalsadan loo qabanayo imaamu shaafici waxaa ka mid a inaan mar walbaba iskula dardaaranno diintaas barashadeeda iyo fidinteeda iyo qof walba camalkiisa inuu ka dhigo ikhlaas liwajhi illaah ilaahay dartii inuu mar walbaba uu ka dhigo walidaalika ikhlaaska imaamu shaafici raximah اllahu tacaala waxaa ka mid ahaa namaadijkeeda ama muuqaaladeeda iyo tusaalaheeda ka mid ahaa alimaamu اlbayhaqi raximah اllahu tacaala kitaabkiisa manaaqib اlimaam shaafici wuxuu ku wariyey in sheekha loo yimid imaamu shaafici dad ay u yimaadeen markaasaa waxaa lagu yidhi imaamu shaaficiyow kitaabkii aada qortaba magaalada kitaab kale oo fanniga uu ka hadlayo iyo mas'alada uu ka hadlayo ah ayaa laga daba alifaa haddaad kitaab ka qorto usuululfiqhi kitaab kale laga daba qori haddaad masalatu dalaaq ka hadashid masalatu dalaaqa magaalada lagaa daba alifaa sheekhu dadaas sidaas kuugu taagan markaasuu imaamu shaafici raximah اllahu tacaala wuxuu yidhi nusanif wayusanifuun wamaa kaana lilaahi yabqى ilى dahri ayagu waxa qoraanuu yidhi iska daaya tartanku lama jiro anna waxbaan qori wamaa kaana lilaahi yabqى ilى dahri wixii ilaahay dartii loola jeedo ayaana ilaa qiyaami saaca baaqi noqon doonuu yidhi waxaana kala saari doonta taariikhda wixii ikhlaas loola jeedo dar ilaahay loola jeedo iyo wixii hebel ku riix loola jeedo taariikhdaana kala saari doontuu yidhi imaamu shaafici ee iska daaya taariikhiina wuu kala saaray waan arkaynaa maanta taariikhii wuu kala saarayoo waan arkaynaa maantay yacni heer waxaa la gaadhay macaahidda iyo jaamicaadka iyo meelaha waaweyn marketing looga dhigto ama taswiiq suuqgeyn looga dhigo in lagu qoro ama machadka loo bixiyo ama jaamicadda loo bixiyo jaamicat اlimaam الshaafici macaahiddii loo bixiyo machadkii alimaamu shaafici goobihii ganacsiga loo bixiyo imaamu shaafici maxaa keenay magiciisii waxaa la og yahay sheekha qof walboo muslima markuu maqlo alimaamu shaafici inuu maaragtaahi dareemayo
xushmad iyo qadarin ay qalbigiisa ku soo dhacayso xushmad iyo qadarin inay qalbigaaga ay ku soo dhacayso ayuu qof walba uu dareemahay marka taasina waxaa keenaya alimaamu shaafici raximah اllahu tacaala ikhlaaskiisii iyo cilmigiisii ayaa keenay imaamu shaafici raximah اllahu tacaala markii taariikhdiisa la daraaseeyo oo taariikhdiisa la aqriyo waxaa soo baxaya inuu ahaa shakhsiya ikhtaaraha allahu tacaala linashri اdiin اlislaamiy wax kale kuma soo baxayaan waad akhrisay waad rogrogtay yacni safaxaadka taariikhda waxaa kuu soo baxaya inuu ahaa shakhsiyad ilaahay uun u doortay diinta bis wax kale ugama jawaabi kartid si kastood wax u daraasayso si kastood wax u akhriso leanna waxaa weeye alimaamu shaafici markaad fiiriso duruufaha isaga ku hareeraysnaa markaad fiiriso yacni ma ahayn duruufo takwiininaya ama ku tashjiicinaya inuu xataa wax barto laakiin ilaaha doortay subxaanahu wa tacaala aabbihii sida ad og tihiin isagoo yar ayuu aabbihii geeriyooday agoonnimu ku soo barbaaray midda kale aabbihii sheekh weyn oo caalimahoo mudaris oo faqiiha ma uusan ahayn adeerkiina ma ahayn sheekh caalimahoo naxwiya oo mufasir oo lugawiya ma ahayn abtigiina sidaas yacni qaraabada ku hareeraysan markii laga tago yacni inuu ahaa usradii iyo qoyskii nabigeenna sala allahu calayhi wasalam yacni ka soo jeeday markii laga tago awowga uu ku abtirsanayo inuu saxaabi ahaa laakiin aabbahiis iyo awowihii iyo abtigiis qaraabada aad ugu dhodhow kuma jirin ruux luqawi ama mufasir weynuhu kuma jirin agoonnimona waa isaga soo barbaaray waxaa soo xanaaneeyey oo gacanta ku haysay hooyadii umbaa soo xadaanaynaysay marka mukawinaadkiisa iyo duruufihiisa uu ku jiray sheekha markii la fiiriyo waa shakhsiyad ilaahay u doortay diintan in ilaahay uu ku kor yeelo subxaanahu wa tacaala ilaahay markuu wax tarbiyeynayo oo shaksi uu dooranayona yacni uma baahna bii'a saalixa inuu qofku ka soo jeedo ama culummo ahludiin ah in qofka aabbihii uu yahay caalim awowgii uu caalim yahay shardi uma aha ilaahay doorashadiisa subxaanahu wa tacaala walidaalika nin shaacira gabyaayo wuxuu yidhi famuusa aladii rabbaahu jibriilu kaafiru wamuusa aladii rabbaahu fircawnu mursalu waxaa jiray muuse saamiri hooyadii markii ay dhashay casrigii hooyadii waxay dhashay muuse saamiri dowladdii fircoon ay carruurta wiilasha gowriciisa casrigaasuu dhashay muuse saamiri hooyadii marka waxay tihi ma doonayo inaan arko wiilkay walla gowracayo meel ayay isaga tuurtay oo cidlo ah malagan jibriil ayaa u naxariistay oo wiilkan intaa umusha yacni lagula jiro meel cidlaa lagu tuuray jibriila marka malab iyo caano iyo wax u keeni jiray oo meesha ku soo barbaariyey ka bacdina ilaahay subxaanahu wa tacaala biqudratihi yacni ilaahay awooddiisa wuxuu noqday gaal wiilkaa uu soo barbaariyey jibriil nebiyullaahi muusena wuxuu ku soo koray gurigii fircawn ashayطaanu alakbar aladii daca aluluhiya shaydaankii weynaayey ilaahnimada sheegtay gurigiisuu ku soo barbaaray nebiyullaahi muuse muxuuna noqday keliimullaahi wa rusulu min alambiyaa'i wاlmursaliin keliimka ilaahay iyo ambiyada iyo rususha ilaahay kuwooda ugu waaweyn ayuu noqday alimaamu shaafici raximah اllahu tacaala nash'adiisii markii la fiiriyo iyo qaabka uu ku soo barbaaray ayaa astaamaha waxaa ka muuqanaya shakhsiye ilaahay doortay inuuba yahay walidaalika alimaamu اlbayhaqi kitaabkiisa manaaqib wuxuu ku sheegay mucallimkii dugsiga markii loo dhiibay alimaamu shaafici mucallinkii dugsiga markuu qur-aanka u meerinayey alimaamu shaafici markii looxa uu dhammeeyo mucallimku oo khaddii ay qoyan tahay ayaa imaamu shaafici wuxuu dhahayey kuntu axfadu jamiica maa yumli qaddu intaysan qallalin oo looxu uusan qallalin waaba xifdiyuu yidhi qur-aanka wuxuu mucallimku ii meerinayey oo dhan mucallimkii qur'aanka marka la yaabay imaamu shaafici markaasuu wuxuu yidhi laa yaxillu lii an aakhuda minka shay-an
imaamu shaafici oo xalaal ima ahaba inaan ujro kaa qaato maxaa yeelay juhdiba uma marayo dhibba uma marayo inaan wax ku baro aniga qur-aankii inaan kugu garaaco oon kugu dilo oon kaa dhegaysto oo soo meeri aan ku idhaaho yacni dhibba iguma hayso saas awgeed wax qarashoon kaa qaadanayo ma jiraan mucallimkii alimaamu shaafici raximahu اllahu tacaala imaamu shaafici raximahu اllahu tacaala waxaan rabaa culimmadii iga horreysay maadaama jawaanib fara badan ay ka hadleen bal inaan ka hadlo yacni al-usus wاlqawaacid alatii banaa calayha alimaamu madhabahu iyo intishaar madhabihi madhabtiisu sida ay ku faaftay iyo qawaacidka uu ku dhisay sheekhu madhabtiisa iyo madhabteennu waxa ay ku dhisan tahay iyo maraajicda uu ictimaaday imaamu shaafici raximahu اllahu tacaala alimaamu shaafici madhabtiisu asbaab fara badan oo sababka abraska ah ugu weyn uu yahay ilaahay inuu doortay madhabka imaamu shaafici ayaa horta ugu weyn oo ilaahay shayga hadduu aqbalo dee uma baahanayo asbaab laakiin haddana ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu sabab uga dhigay in madhabka imaamu shaafici uu faafo a'immadii madaxweynayaashii xilligaa joogay ayaa waxay jeclaysteen madhabka imaamu shaafici inay waddamadooda ku xukumaan yacni heer mustawo wuxuu gaaray madhabu imaamu shaafici madaxdii iyo siyaasiyiintii casrigaa noolaa ay ku qancaan madhabkan imaamu shaafici inay shacabkooda ay ku xukumaan waxaana mar walbaba yacni la yidhaahaa annaasu calaa diini muluukihim dadku mar walbaba waxay ka diin noqdaan siyaasiyiintooda iyo madaxdooda siyaasiyiintooda iyo madaxdooda waxay qaataan ayaa shacabkuna ay ku khasban yihiin inay qaataan madaxdaas waxaa tusaale aan uga soo qaadan karnaa oo ka mid ahaa yacni sheekhii la dhihi jiray ninkii madaxweynihii la dhihi jiray alxasan bnu caliyin almacruuf binidaami اlmelik ninkaas dowr weyn uu ku lahaa inay faafto madhabka imaamu shaafici alxasan bnu caliyin almacruuf binidaami اlmelik ninkaa madaxweynaha ah dowladdii cabbaasiyiinta ayuu ka mid ahaa wuxuu isaga nafsaddiisu yacni saaciday madhabka imaamu shaafici inuu ku xukumo waddamadii islaamku xilligaa uu ka telinayey isaga nafsaddiisa ayaa bartay markii hore madhabka imaamu shaafici ka bacdina wuxuu aasaasay madaaris uu shardi uga dhigay madrasadan yacni sheekh kama noqon karo ama ma daraasayn karo ilaa qof madhabka imaamu shaafici aad u yaqaano mooye waxaa ka mid ahaa tusaale ahaan wuxuu aasaasay almadrasa الnidaamiya madrase la dhihi jiray oo baqdaad ku tiilay ayuu madaxweynuhu oo aasaasay madrasadaas wuxuu gacanta u geliyey abu isxaaq ashiraazi sheekhan weyn oo macruufka ah a'immada shaaficiyada ka mida wuxuu kaluu aasaasay xasan bnu caliyin almacruuf binidaami اlmelik almadrasa الnidaamiya oo eeraanna uu ka aasaasay gaar ahaan naysaabuur madrasadaasna wuxuu u dhiibay imaamulxaramayn oo macruuf ah a'immada shaaficiyada ragga ugu waaweyn ka mid ahaa sidaasi marka waxay ka mid ahayd waxyaalaha tiirarka u aasaasay inuu faafo madhabka imaamu shaafici ninkaas madaxweynaha ah xasan ibnu cali almacruuf binidaami اlmelik oo madaaris yacni intuu ka telinayo dhan wuxuu ka dhisay xalaqaad iyo macaahid iyo madaaris uu shardi uga dhigay laguma daraasayn karo ilaa madhabka imaamu shaafici maahan marka waa dareeme madhab ay ictinaaqeen calaa mustawa alxukuuma wa calaa mustawa dawla gaaray inuu si fudud ku faafayo qof walba wuu dareemi karaa waxaa kaloo ka mid ah waxyaalaha sababta u ahaa madhabka imaamu shaafici inuu faafo qudaaddii dowladdaa xilligaa jiri jirtay qaaliyaalkii dadka ugu magaca weyn oo laga dhigay qudaaddii shaaficiyada a'immadii shaaficiyada qudaaddooda laga dhigay waxaa ka mid ahaa abulcabaas ibnu surayj wuxuu qaali ka noqday
dhulkii la dhihi jiray Shiiraas ayuu isagu uu qaali ka noqday meeshaas wuxuu ku faafiyey marka isaguna madhabkii imaamu Shaafici laano mar walba shacabku waxay raacayaan qaaliga fataawaadkiisa iyo wax ku xukumayo ay mar walba ayagu ay raacayaan waxaa kaloo ka ahaa dadkii madhabkan aad u faafiyey sheekhi isaguna qaali ka noqday dhulkan Shaam Abu Zur'a isaguna wuxuu qaali ka noqday dhulkan Shaam jiray dhulka Shaam Abu Zur'a inuu qaali ka noqon hadalka shacab ay haystaan oo ahaan jiray madhab al-Awzaa'i madhabkii imaam al-Awzaa'i ayaa dhulka Shaam laga haystay madhabkii imaam al-Awzaa'i isagoo Shaam oo dhan ku faafay ayaa meeshii waxa yimid Abu Zur'a Muhammad ibn Uthman sanadkii 281 taariikhda hijriga ayaa qaali loogu soo magacaabay meeshaas marka Shaam wuxuu ahaa awwal man adkhala al-madhhab al-Shaafi'i fi bilad al-Shaam qofkii ugu horeeyo madhabka imaam Shaafici soo galiyay dhulkan Shaam ayuu ahaa Abu Zur'a waliba si madhabku u faafo wuxuu u ballan qaaday qofkii xifdiya kitaabkan la yiraahdo Mukhtasar al-Muzani an yu'diyahu 100 dinar 100 dinar oo lacagta dahabka ah ayaa siinayaa qofkii xifdiya kitaabkan madhabka imaam Shaafici kutubta ugu waaweyn kamida ee Mukhtasar al-Muzani loo yaqaan dhalinyaradii marka heer Shaam nin waliba inaan xataa Ilaahay dartii u xafidaynin wuxuu bilaabay qof walba inuu barto kitaabkii Mukhtasar al-Muzani oo madhab Shaafici ku qornaa dhalinyaradii oo dhan marka heer Shaam waxay xifdiyeen Mukhtasar al-Muzani ayagoo qaarkoodna u xifdinaya yaani inay diinta ay u bartaan qaarkoodna ku xifdinaya ballanqaadka Abu Zur'a oo uu ballan qaaday in 100 dinar uu siinayo marka dhalinyaro badan heer Shaam kamida ayaa waxay dhihi jireen hadalkii Imaam al-Ghazali uu dhihi jiray oo kale ayay iyaguna yiraahdeen waxay yiraahdeen ta'allamna kitab al-Muzani li ghayri Allah fa aba al-kitabu illa lillah dhalinyaro badan heer Shaam waxay dhihi jireen kitaabka Imaam Shaafici madhabkiisa ka sheekeynay Mukhtasar al-Muzani ilaahay ghayrkiisa u barajirnay 100 dinar aad heshin laakiin ka bacdi kitaabku isagaaba diiday illa lillah ilaahay ma ahana wax kale isagaaba kitaabku diiday taasina marka waxay noqotay oo ay ku kaliftay heer Shaam oo dhan inay qaateen madhabkii Imaam Shaafici waxay noqotay sida uu sheegayo Abdul Wahhab Tajuddin as-Subki kitaabkiisa Dabaqaat Shaafici wuxuu ku sheegay heer waxa la gaaray dhulka Shaam iyo dhulka Masar gabadhu marka la aroosayo oo arooska loo gelbinayo ay shardi uga dhigto ay tiraaho arooskayga la gelbin maayo haddii kitaabka Mukhtasar al-Muzani fi al-madhhab al-Shaafi'i hadan boorsada la isoo gelin wallahi inaan arooskayga la gelbinay heerkaas uu gaaray xilligaas madhhab al-Imam Shaafi'i fi bilad al-Shaam wa fi bilad Misr yani ilaa xujo looga dhigo gabdhihii ay xujo ka dhigtaan la aroosayo oo iraan Mukhtasar al-Muzani hadan boorsada dharku igu jiro arooska aan la isoo gelin arooskay waxba ka dhiman inay gabdhuhu ay dhihi jireen marka waa madhab Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu diyaariyay ba asbaabtii uu ku faafi lahaa laana waxa weey dhalinyaradii hadii arooskoodii ba shardi looga dhigay kitaabkii ka hadlayay madhab Imam Shaafici oo aroosba uusan ku ansaxayn qof walba ku khasban yahay marka inuu madhab Shaafici inuu kutubtiisii iyo daraasadiisii uu qaato qof Ilaahay dartii u bartay iyo qof u baranaya arooska ku ansaxo ay noqotay ka bacdina ay noqdeen Ilaahay dartii walba inay gabadhii ku soo aruuraan taasina marka asbaabta waxay kamid ahayd uu ku faafay madhabka Imam Shaafici dawladihii xilliga jiray oo madhabka Imam Shaafici qaatay iyo qudaadii iyo dadkii qaadiyaalka ahaa oo madhabka Shaafici ayaguna bilaadii islaamka ku xukumayay madhabka Imam Shaafici rahimahullahu ta'ala لأنه إمام الشافعي ميزة مذهب كيس أوليه هاي وحكم ذا إمام الشافعي وحو دراسي أو برتي مذهب كمالكية
لأنه شيخي مذهب كأساسي الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة أيوب أحرستيبا marka looga sheekayn maayo maalikiya waxay qabto maalikiya waxay qabto loogama sheekaynayo imaam shaafici maadaama sheekhi muassiska madhabka maalikiyada ka ahaa isaguba wax ka soo bartay waxa kale oo imaam shaafici